dagaalada maanta ka dhacaya Soomaaliya oo waliba la leeyahay waxa ay dhexmarayaan kooxo islaami ah ama magaca islaam ku abtirsanaya xataa haddii ay khaldan yihiin ma isleedahay waa mushkilad islaamkii iyo Soomaaliyaba ku dhacay bismillaah dib ku yimid muslimiintii iyo Soomaalidii iyo islaamka la soo ruxmeeyay intaba waxaad samoodaa inaan mar walba kala qaadno islaamka diin ahaan iyo fahamka khaldan inay muhiim tahay islaamku waa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay wuxuu leeyahay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun Ilaahay baa xifdinaya ilaalinaya wardiyeynaya waxa aad moodaa mashruuci ururada islaamiga barnaamijkii siyaasiga ururada islaamiga inuu dhaawac aad u xog badan uu soo gaaray arrimahan darteed taana waxay la tahay waa wax muuqato aan cidina inkiri karin waxaad samoodaa iyada lafteeda hadana in la sii kala qaadi karo islaamiyiinta islaamka sida saxda u fahamsanaa iyo manhajkan khaldan ama fikrigan khaldan muxuu ahaa shaatiga islaamka wata laakiin xaqiiqa ahaan aan islaamkii saxda ahayn in isaga laftiisa ay tahay in la kala qaado taasna waa dowr laga doonayo culimada Soomaaliyeed dadka waxgaradka ah inay isu taagaan oo yiraahdaan may islaamkii nabi maxamed kan ma aha islaamkii la yaqaanay kan ma aha waxana waa fikrad dakhiil ah ama waa fikrad muxuu soo galooti aweeye oo islaamka iyo muslimiinta laftooda soo galooti ku ah saadarteed waxa weeye waa mashaakilaadka muslimiinta marar farbadan taariikhda soo maray laakiin aan isleenahay in laga gudbi karo lagana gudbayo biidnillaahi ta'ala haddii ay dadku si sax ay isugu taagaan insha Allah ta'ala waxa la socotaa in dagaalo aad u xoogan mararka qaarkood marka uu dhexmaro ay inta badan dadka ku dhintaan rayidka ah ee waliba aan dagaalada ka qayb galeen taas laftirkeeda muxuu islaamka ka qabaa waliba marka si gaar loo eego dagaaladan waxa toos ay uga imanayaan waa dad lagu yaqaanay shuyuukh inay ahaayeen oo dadkii wax bari jiray oo mararka qaarkood waxyaabihii wanaag looga dabadayn jiray marka laga hadlayo qofka muslimka ah oo dhigiisa la baneystaa diinta islaamka xaraan weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala taqul liman alqa ilaykum assalaam lasta mu'minan tabtaquna arad alhayati dunya yani qofka idin salaamo idin yiraahdo assalaamu alaykum ha oranina muslim ma tihid idinkoo marka dhalaal maada iyo hadaad dishaan inaad xoolihiisa qaadataan doonay rabbiga subhanahu wa ta'ala waa qofka idin assalaamu alaykum marka qof tukanaya oo soomaya oo muxuu islaamkii madaahirtiisi waaweyn ilaalinaya muharramaadka waaweyn ka tagaya in aniga ayuu khilaafay darteed ama aragtidaydu diiday darteed loo dilo diinta islaamka meel kaga jirta ma jirto nabiga calaysalaam salaam wuxuu leeyahay la tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd anu markaan dhinta gadaashayda gaala islaynayso dhiigooda isbanaysanaysa ha noqonina buu nabigu leeyahay calaysalaam salaam nabigu waxa kale oo uu leeyahay la yazaalu almu'minu fi fushatin min diinihi ma lam yusib daman haraman qofka muslimka inuu diintiisa waasac kaga jiro oo ay toobadu u furan tahay oo uu dambi kasta u galo ay suuragalta Allah inuu ka dhaafo Ilaahay gacmaha u horsado kama zuulayo haduna dhiig xaraam galin marka akhiradu aanu ama qof sheekhi ha galo arintan ama qof aan sheekhayn ha galo dambi waa dambi weeyaan marka arintan waa jariimo weeye waana arin khalad ku ah islaamka iyo muxuu ahaa dhaqankiisa weeyaan waxaan rabaa inaan kugu sii daro Ali ibn Abi Talib oo garanaysa inuu khaliifkii afraad muslimiinta oo ahaa نبي الله محمد عليه السلام من أديركي نبي الله محمد قبل يسيق قبي أي كسر دقتي قرآن فربنا وكسر دقي حديث فربنا وكسر دقي والنبي أولى عليه السلام لا يحب يعني علي مجعل هذا قف أن مؤمن أهين علي منع قف أن منافق أهين أما محوها أن قفح أهين علي منك يدي لي هبين كنا صلاة الليل بالتكنية وفرسي يعني هبين كنا صلاة الليل بالتكنية صبحين وحد إلى علي صلاة الصبح يعني مركب معناه هذا معها qofka haduu khaldan yahay waa sheekh bay ahayd iyo waxba akhrinay waxba u tari mayso waa khalad weeyaan waana wax in fara badan taariikhda muslimiinta soo maray weeye marka waa dhib laakiin hadana waxaan rabnaa dhibka dadku inay ogaadaan ay ka baxaan oo yiraahdaan war waxan uu khaldan yahay ama sheekh ha sameeyo ama siyaasi ha sameeyo ama mutacallim sheeganaya ha sameeyo khaladku waa khaladkana waxa la rabaa in laga hortago meel kasta iyo goor kasta iyo xilli kasta labo afkaar oo diini ah oo mararka qaarkood iyaga istuqaynaya oo mararka qaarkood maaragtay dhex dagaalamaya sidee mujtamaca loo fahamsiin karaa waxa dhacaya waxa khaldan iyo waxa saxan waa maxay soo arin adag ma aha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qof ka sharaf badan ma jiro risaaladan islaamka isaga ayaa ramzi ama laf dhabar u ah sidaas taa u fiirsan nabi ilaahi maxamed baa la khilaafay calayhi salaam qofkii khilaafay nabigu ma dilin waxaan ku siinaa tusaale mesela nabi ilaahi maxamed nin baa wuxuu ku yiri yaquluuna la rajacna ila almadinati la yakhrujanna al'azz minha al'adal hadal magaalada madiina ku noqono kan dulliga ah oo maxamed ana ka saariya magaalada buuri anigu sharaf baan leeyahay bulaahi waa munaafiq weeyaan inuu munaafiq yahay quraan baa ku soo dagay oo ilaahay ku tiraahdo subhanahu wa ta'ala ninkaas markuu dhintay nabi ilaahi maxamed calayhi salaam khamiiskiisu qabay buu u bixiyay markaas lagu kafaray khamiiskiisi
قف كنوع عاسى مركي اللي يري أن دلنا كتك نبي وحول الله لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لما دليو ما ندون يدكون يكون كسان محمد أصحاب تيسا أيو لينيا محاجرة دتك كلات أو تصير كأهو ما أوجا قف كان منافق مديس صادرت هدان دلو بكتشر كي مسلمة هي الصورة دي بفرح معنيسة مركب واحد لورانيا أو محمد ما أنت وحول الله يا أصحاب تيسي مركب ما دوني إنسان الله سمية في نبي الله محمد بمعارضة نبي المدينة عليه السلام وحاك لا تأكل صحيح البخاري مسلم أورينا يعني نبي الله محمد عليه السلام أو قيبنا إنه مال نك خوارجته أي كسر أسكون الرجل ذو الخويسرة يا نبي يقول حكوري يا اعدل يا محمد فإنك لا تعدل محمد وعدالة سمع عدالة ما سميني سيدي نبي بركة وحور دقيسو عليه السلام ويحك أي أمانني الله في أهل أرضه ولا تأمنوني أنتم في هذه القسمة ولك راح أقول عضو إلهي ما وحي آمني وحي يسي دين تيسي أذكر ما واحد يقول آمني نبغى وحي رون قيبنا أيه قف كي سيدا يري في نبي الله محمد بمعارضة وخلافه حدنا ولي بنت كوبا كانني وحو تهميسنا يا نبي الله محمد عدالة ديس عليه السلام وتهميسنا يا نبي خالد بين أن دل رسولك الله يبناه نبي وحو كوري ألا ترى أنه يصلي بهذا وجدن إنه تكنيه بهذا وجدن إنه تكنيه مركا وحو لخالد رسولك الله فربنا مد أفكك أرني وحن قلبي جيس كجري نبي وحو كوري يا خالد إني لم أؤمر أن أنقض على قلوب الناس خالد ولا ما فرندتك قلوب صوح كجري إن عند الله عيانية تا إلهي بكو شقله سبحانه وتعالى مركا معناه هو حوية هدي الله إسخلافه معناه هذا معها إلا إسدلو معها القرآن وحينوت المامة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني هذا إسخلافتان وحسكو قبتان إلهي الدين كيسة النقضة تاسنا ما حي كانسة حوار نقاش إن لو وضح له إن إسوان قوري ماشي أولين لا إسوي مادو لكن وان كدي ليا واد قالوا ذي أرأركتي ذي بديدي وحي عن ريبة قادم ويدي ورقن كي خوارج تويان محوها دل علي من أبي ذلك ويان رقن كستو أو قفكم مركو خلافه قفك أرانيا قال ويه عقيدة ماله وردوبي مشرق ويه رقم هذا صار لن ورقم هذا خوارج تويان وإن لك لسارات لذا فكرك إيو وحل يسكو هيو exactly وإن لك لسار وأنا قبل كراني أدو دبعت ماله بني آدم بيننا هاي وإله وحوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك دتكو إن إسخلافان كما زوليان إن أسقبنا مركا دبعت ماله لكن إسقب الشضوة إن يكت ماده إن لا نقاشه لا وضح له لكن أنا أقول وانصحاني أنا ودخلتها مرة والبا وقالوا ذي رقم كنوع كاسان ربنا مركا ديالله waxyaabaha Soomaaliya ka dhacay runtii dadka marar fara badan laga yaabo inay ku qaadaan jahawareer waxa kamid ah in dawladda kumeel gaarka oo kale markii ay ansixisay in shariicada islaamka dalka lagu xukumayo bilooyin kadib ay dhacday qarax ismiidaamin ah oo waliba dawladda kumeel gaarka ciidamadeeda lagu la kacay iyadoo ururka al-shabaab ay sheegeen inay ismiidaamintaas ka dambeeyeen dawlad shariica islaam ku dhaqantay haday rabto yeysan dhaqan gelinin laftirkeeda muxuu islaamku ka qabaa in la isku qarxiyo aniga dawladda wakiilka ma ahi hadafkan rabnaa saxano waa fikri khaldan way ama dawladda ha noqoto ama yana noqonin amalka ismiidaamintu iyo isqarxintu diinta shaqo kuma leh كون من دونه وحق غريبة مركب قرح كرع مقالات بلدوينة وحن جوجا مريكنك مركب وحن دقيستي قفك واحد على الشباب أيان دقيستي وحاد يجي أبي وحار دانو وحوري إلهي بقرآن كنويري فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم شوف فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم يعني آدم عنه هو محي قال هذا مدح ذا اللاية محاجر كواسو ضلن إيه دار إيه وح كان قدام منا ما جرته مركا إلهي بسان نقول يريو أمر بانفلون عيني مركا دت كان ليني وقال هذا مدح ذي ويان مركا يا قال دت كان ليني يا مدح يهينو يوم قال شعب الصومالي مركا منهج كان نوع عاصه حبطقن كان نوع عاصه وحويه وح اسمي ذا متى مرجونان أيام فيرن دونا لكن فكري أقفك إخلافه وانديليا قفك إخلافه ديجيسان بنيسانيا أنا أيا الله إخلافه قفك وردوبي منهج كان نوعاسه وواجب دينا إلى لا دجالمه لجوه ريماده شعبك الصوماليين أي تاجر هذا كعشران شعبك الصوماليين أي رهدان إنتنا كفر إنتنا أنفقة منهج كان نوعاسه محاجرة كاسوة حوية هدي حتى ما أنت يسوي أول يشو اكتساحه يسوي وقبصده بريت يسوي لفتي سأستأكل يسعنايا ومدة ضمب اللينية وقدام بين تروح حتى السببية ودنك إنه كان إذا مش شيء أجنبي استعمار إنه كان أي السببية مركب منهج كاسو أركتنا نوع عاصو وحوية أركتنا ما أهل لسان قاعدة كرت حضارة الدون كجرته إسلام صحة أركتنا ولا تنا معها مركب حبا أنت أركتنا سو
in iyada oo dadku ayna u kala harin in la naqdiyo iyada oo meesha lagaba saaro dowladda kumeel gaarka ah iyo maxay tahay iyo maxayna ahayn taas marka aan waxay la tahay waa sidaa weeye